Assalaamu calaykum kusoo dhawaada daawadayaal warbaahinta nuxurka wararka qodobada xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa qarax la eegtay gaari uu watay sargaal ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya xafiiska hantidhoorka oo bilaabay raadinta lacago ku maqan gobolka Banaadir iyo baaritaano uu ku hayo xafiiska maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaare Kheyre oo laga dalbaday inuu cadaaladda horgeeyo askari wiil dhalinyaro ku diray magaalada Baydhabo isku dayo lagu doonayo in lagu sii daayo wasiirka amniga Jubbaland oo fashil ku yimid iyo boorsooyinka caruurta iskuulada oo qabuuro matalaad laga sameeyay iyo sababta keentay oo aan idin hayno haddii aynu ku bilowno daawadayaal waxaa magaalada Muqdisho maanta ka dhacay qarax nooca gawaarida lagu dhajiyo oo lagu xiray gaari uu watay sargaal ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana qarax u dhacay xilli uu maray agaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho sida wararka lagu helayo qaraxan waxa uu ahaa mid lagu xiray gaari nooca loo yaqaan Saarifta oo uu watay sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo lagu magacaabo General Maxamed Doore waxaana sargaalkan la sheegay in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska dowladda Soomaaliya oo goobta gaaray waxa ay xireen wadada ka dhow halka qarax uu ka dhacay waxaana ay qaadeen dhaawaca sargaalka oo ay geeyeen mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho waxaa sargaalka la dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisa oo la socday xilliga gaariga uu qaraxa qabsanayay booliska ayaa sidoo kale wada baaritaano ku aadan qaraxan gaar ahaan halka lagu soo xiray miinadan oo ah nooca dhajiska inta badan lagu xiro gawaarida shakhsiyaadka ay leeyihiin xafiiska hantidhooraha ayaa baaritaano ku haya xafiiska maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir wararka laga helayo xarunta gobolka Banaadir waxay sheegayaan in baaritaano lagu bilaabay xafiiska maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir kadib markii ay soo baxday in lacag ku dhow 1 milyan oo dollarka Mareykanka la isticmaalay wixii ka dambeeyay 24 Julaay xilligaas xarunta dowladda hoose waxaa ka dhacay qarax mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir dhimashadii dhaawac ay ku noqdeen sida wararku ay sheegayaan waxaa baaritaanadani lagu ogaanayaa lacagtaasi halka lagu qarash gareeyay oo qaar ka mid ah loo adeegsaday daaweyntii mas'uuliyiintii uu ka mid ahaa Allah u naxariistay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Jirisow iyo saraakiil kale ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo wax ku noqday qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose iyo aaskii qaran ee loo sameeyay mas'uuliyiintaasi wararku waxay intaa ku darayaan in baaritaanadan lagu hayo mas'uuliyiin gaar ah oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo si gaar ah xilkan u sii hayay muddadii hawshan la hayay waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in saraakiisha qaarkood la amray inaysan dhaqdhaqaaqyo sida u ballaaran ay sameyn ilaa iyo inta baaritaanada xarunta ay ka soo gabagaboobayso xafiiska hantidhooraha guud ayaa 3 maalmood ee la soo dhaafay baaritaano ku hayay dukumeentiyada xafiiska maamulka gobolka Banaadir waxaana la sheegayaa in arintan ay su'aalo ka weydiinayaan gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Dheere maadaama uu si kumeel gaar ah xilkan u sii hayay xilligii dhacdadu ka dhacday aqalka dowladda hoose gobolka Banaadir wixii ka dambeeyay baaritaanada hantidhooraha guud ee ku hayo xafiiskan ayaa sababay in ay daahdo mushaarka shaqaalaha gobolka Banaadir sidoo kalena inta lagu gudu jiray tacsida waxaa la hakiyay bixinta mushaarka shaqaalaha dowladda hoose waana tan keentay in baaritaano culus lagu sameeyo aqalka dowladda hoose Xamar markana waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan farmaajo yuusan sheegan guul aan weli iman oo noqon karta guul daro ka cararo Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay aqbashay markii ay maxkamadda ICJ geysay dacwad ka dhana Kenya inay aqbasho xukun walba oo maxkamadda ka soo baxa guul iyo guul daraba dacwadu ma ahan mid Xasan Sheikh uu guri ay Kenya ka dhacday ku soo dhacsanayo waxa ay ahayd dacwad uu ku gudbiyay magaca jamhuuriyadda ee uu shaqaalaha ka ahaa farmaajana sidoo kale uu shaqaale ka yahay kiiska badda waxa uu yahay waxyaabaha dhif iyo naadirka ah oo ay Soomaalidu ku midaysan yihiin haddii lagu guul dareysto waxa imaan kara fashil siyaasadeed balse guul haddii la gaaro waxaa dhici karta in shakhsiyaadka qaarkood ay dusha saartaan in iyagu ay mas'uul ka yihiin Soomaalida ayaa indhaha ku wada haya arintan baddan
oo ay shakhsiyaadka qaarkoodba moodaan in iyagu ay soo hoyeen. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay waxay sheegayaan in maanta kulan uu dhex maray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo odayaasha dhaqanka magaaladaasi ku sugan. Odayaasha waxay Kheyre ka dalbadeen in uu mag ka bixiyo dadkii lagu dilay magaalada Baydhabo sanadkii ina dhaafay 2018 kadib markii rabshado ay ka dhaceen magaalada Baydhabo. Rabshadahaas waxay ka dhasheen markii la xiray Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartamaysay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. 15 qofood ayaa la sheegay in rabshadahaasi ay ku geeriyoodeen. Xukuumadda Soomaaliya waxaa laga dalbaday in ay bixiso magta 15kaas qofood. Sidoo kale odayaashu waxay sheegeen in ay ku daaleen raadinta xorriyadda Mukhtaar Roobow oo gacanta dowladda Soomaaliya ku jira. Odayaashu waxay si gaar ah ugu dalbadeen Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baydhabo in uu dhexda u xirto sidii loo soo deyn lahaa Mukhtaar Roobow oo gacanta dowladda ku jira. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxay warar ku sheegayaan in uu u ballan qaaday odayaasha dhaqanka in uu bixinayo magta dadkii lagu dilay magaalada Baydhabo, sidoo kalena la sii deynayo Mukhtaar Roobow. waxa uu ka dalbaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga dambeeyaan arrimahan Koonfur Galbeed Soomaaliya. kulanka waxaa goobjoog ka ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, waxaana sidoo kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre odayaasha xasuusiyeen ballanqaadyo uu sameeyay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligii xiisadu ay taagneed oo ahayd in xukuumadda Soomaaliya aanu yeeli doonin dhibaatooyinkii dadka loo geystay dadkii ka dambeeyay oo aan cadaalad la muteysin. dhanka kale odayaasha dhaqanka Xasan Cali Kheyre waxay ka dalbadeen in cadaaladda uu horgeeyo askari ka tirsan ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shalay magaalada Baydhabo ku dilay nin shacab ah oo gaari waday. dilka ninkan ayaa yimid kadib markii gaariga la sheegay in uu bareega u goostay, gaarigana uu aaday dhanka askarta. askari ka tirsanaa ilaalada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa rasaas uu ku furay, waxaa ku geeriyooday wadihii gaariga. odayaashu waxay dalbanayaan in cadaaladda la horgeeyo askarigii dilka u geystay wadaha gaarigaasi sida ay ku doodayaan. waxaa fashil ku yimid isku day lagu doonayo in lagu sii daayo Cabdirashiid Janan oo ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Janan waxaa dhammaadkii bishii tagtay Agoosto laga soo xiray garoonka diyaaradaha Aadan magaalada Muqdisho kadib markii diyaaraddii uu saarnaa ay kala soo degeen ciidanka nabad sugidda Soomaaliya. Janan waxaa loo haystaa in uu dad shacab ku dilay qaybo ka tirsan gobolka Gedo, waana tan keentay in xabsi lagu sii hayo. Durbana waxaa soo dhaweeyay xabsigii lagu xiray hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha sida Amnesty oo sheegtay in uu mudan yahay Cabdirashiid Janan in cadaaladda la horgeeyo siday hadalka u dhigtay. odayaal ku heeb ah wasiir Janan waxa ay la kulmeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha oo shuruud ku xiray gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka. waxa uu sheegay in aanu weji wanaagsan kala kulmin madaxda dowladda Soomaaliya kolkii ay u tageen. ugu dambeyn, hay'adda waxbarashada u qaabilsan qaramada midoobe ee loo soo gaabiyo UNICEF waxa ay boorsooyinka carruurta iskuulada u qaataan ka samaysay qabuuro matalaad ah si ay u muujiso dhibaatada carruurta ka soo gaarta goobaha ay colaadaha ka jiraan. UNICEF ayaa 3,758 boorsada carruurta iskuulada u qaataan waxay dhigaan meel bannaan ah si ay ugu dhigaan qabuuro matalaad ah, waxaana qabuuraha lagu matalay carruurtii sanadkii hore 2018 ku dhintay goobaha ay colaadaha ay ka jiraan. barnaamijkan lagu sameeyey qabuuraha matalaadda ah waxaa lagu qabtay magaalada New York ee dalka Mareykanka, waxaana la soo gabagabayn doonaa qorshahan beri oo Talaada ah. agaasimaha hay'adda waxbarashada u qaabilsan qaramada midoobay UNICEF Henrietta Fore ayaa sheegtay in boorsooyinka iyo ficilka ay sameynayaan ay yihiin kuwa muujinaya rajada carruurta. carruur badan ayaa sanad kasta ku geeriyoota goobaha ay colaadaha ay ka jiraan, waxaana UNICEF hadda doonaysaa inay hogaamiyaasha caalamka ay tusto dhibaatada colaadda ka soo gaarta carruurta si wax loogu qabto. guud ahaan warkii xilligan aad ka daawanayseen warbaahinta nuxurka wararka waa naga hitaa.
haddii janalkan uu kugu cusub yahay fadlan sabscribe saar oo riix gambaleelka aragtidaadana qaybta hoose nagu reeb mahadsanid.